الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي صقال إيا اللباتنات هي كتاب كيني حكم وفوائد من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله طريق النعيم. هل كان وحنكو قادينا معلومة وشيخو يري أما اللوغو مقعدري ودد اللو مرو نعمة ودد اللو مرو وناقة طريقة loo maro guusha hadday tahay adduun iyo aakhare labadaba wadada loo maro guusha waa maxay? alcuqalaa waxay yidhaahdeen dadka caqliga badnaa sidoodaba ama xikamta iyo dee fawaa'idda laga soo guuriyo waxay dhaha annaciimu laa yudraku binnaciim. waa yacni waxyaabaha soomaaliga inagu mahmahda aanu naqaano weeye. marka dadkii caqliga badnaa ee xikamta laga dhaxlay waxay yidhaahdeen النعيم لا يدرك بالنعيم. sideedaba raaxo laguma gaadho, nicmo laguma gaadho. والراحة لا تنال بالراحة. raaxo laguma gaadho. وأن من آثر اللذات فاتته اللذات. qofka doorta inuu iska macaansado macaankan yar ee adduunka, inuu ku macaansado ruuxii daba kacaya dhalanteedkaas ee waxaa ka tegaysa macaankii dambe ayuu waayayaa. macluumadaa sheekhu kitaab layidhahdo shifaaul caliil buu ku sheegay. maxay ka hadlaysaa arrintan haddii aan fasirno? nicmo laguma gaadho, raaxo laguma gaadho. qofka ladada iyo macmacaankan doortana tii kale ma gaadho. tusaale aan soo qaadno adduunka iyo aakhare labadaba haddaan ku miisaalino, adduunka raaxo laguma gaadho. qofkii raba inuu iska seexdo isagu bixiyo dhowr iyo 10 saac uu iska jiifo, markuu soo kacana intuu cunto iska labisto, meelaha xarxaragooda iska soo hoydaa, noloshiisu noqoto cuntadiisa iyo maaragtay raaxadiisa iyo hurdadiisa iyo intaa ay noqoto, adiguna ogow adduun meel ma gaadhaysid. hadday tahay shaqo la qabsan iyo waxyaabahan adduunka dadkan qabsadeed aragteen, ama ha shaqaystaan oo kambaniyiya howlaha ka shaqeeyaan, saacado dheer bay fadhiyaan oy hurdo la-aan ku joogaan, oy kursiga ku seexdaan. hadday tahay waxbarasho jaamacadeed iyo wax la bartayna kursiga iyagana ku hurdaan. hadday tahay mashaa'ikhda iyo dadka culimada oo wax bartayna iyaguna kursigay ku hurdaan. marka ogow intuba dhibkaasi meesha usoo mareen. waa marka labaad aakhare hadday tahayna, dee haddaad rabto inaad iska seexato oodan waxba adduun ka qabsanin iyo wixii fiicna aadan samaynin, aakharana waxay noqon qofka inuusan wax badan oo shaqaa maad qabsanin. marka waxaa kaa horeeya waad qiyaasi karaysaa inaadan howl badan aada haysanin. marka tan kale ladaadka macaanka hadday tahay waxyaabahan adduunka lagu isticmaalo ama cuntooyinkii oo xalaal iyo xaraan aada u kala fiirinin, wixii ku saala shahwadaadii oo xaraan iyo xalaal aada u fiirinin, iyadana waxay noqonaysaa. tusaale haddaan kasoo qaadno khamrada oo kale, waa kan la yidhah haduu qofku adduunkii uu ku isticmaalo, yacni dadka aakharo la siinayo kuma jiro oo ma helayo. marka sidaas tusaale ahaan baan kasoo qaadaynaa. shay kasta oo aad ku macaansanaysa hadda waxaa weeye wuxuu ku dhaafinayaa macaankii wanaagsanaa ee aakharo ayuu ku dhaafinayaa. marka insha allahu tacaala macnaheedu hala dadaalo. adduun waa kii odhan jiray cumar bin alkhadaab radia allahu canhu ardaah, waa necbahay buu yihi inaan arko qofka oo aan shaqo haynin, laa fi camali dunya walaa fi camali alaakhira. yacni qof aan waxba haynin waa necba. akrahu waxaan nacayaa buu yihi an ara insaanka inaan arko subhala, saas oo kale. yacni laa fi camali dunya walaa fi camali alaakhira. marka wax waliba wuxuu u baahan yahay shaqo ayuu u baahan yahay. waxaa la yidhaahdaa cuqaladu waxay ku kulmeen kulli ummad kasta nicmada sidaan sheegnay inaan lagu gaadhaynin, laa yudraku nicmo kale inaan lagu gaadhaynin. qofkii jeclaada rukuub alahwaal, marka inaad dhibaatada korto, inaad mashaaqda iyo dhibaatooyinka aad maaragtay ku sabirto, yay takuunu alfarxatu walladha. farxad iyo ladde iyo macaansiba markaasaad gaadhaysaa. falaa farxata liman laa hama lahu. qof aan himad sara lahayn iyo han sara aan lahayn farxad gaadhi maayo. walaa ladata liman laa sabra lah. qof aan sabir badan soo marinna ladde iyo isaguna raaxaysi ma gaadhayo. walaa naciima liman laa shaqaa lah.
nicmo iyo reerreynna qof aan dhibaato badan isaguna soo marin arki maayo. walaa raaxata liman laa taciba lah, qof aan soo rafaadin isaguna raaxaysan maayo. bal idaa taciba alcabdu qaliilan istaraaxa tawiilan, haddii qofku wax yar aada soo dhibaatooto, u fiirso adduunkaaba iska yarba, wax yaroo adduunka haddaad soo rafaado ood soo dhibaataysood dhexda xidhato, istiraaxa tawiilan, wax badan 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 baad raaxaysanaysaa. adduun iyo aakhira waa kala badan tahay, waa kan la yidhaahdo. marka wax badan baad raaxaysanaysaa haddii uu qofku idaa taxamala mashaqata sabri, haddii uu qofku saacad aad u adkaysato inaad dhibaatada ku sabirto, qaadahu lixayaati alabad, waxay taasi ku hogaaminaysaa nolol daa'im ah oo wanaagsan ayay ku hogaaminaysaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala thabaat hayna siiyo, rabbina subxaanahu wa tacaala sabirkiisana haynagu quweeyo. wajazaakum allahu khayr wbaaraka allah fiikum.